السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرسنال Somali fans meel kasta joogtaan waxaad leeyahay xil iyo xal wanaagsan. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Arsenal News waxaa soo jeedin aniga Nuuraan Shakar. markaan saaxiib hada barnaamijkeena gudagalna waxaa leeyahay wakiilka Aaron Ramsey ayaa beeniyay wararka sheegaya in xidiga uu ku soo laaban doono kooxda kubadda cagta Arsenal. maalmihiina soo dhaafay ayaa warar dhexmari sheegay in Ramsey ku soo laabanayo Gunners. dhinaca kale waxaa leeyahay Dennis Mavropanos ayaa la filayaa inuu dhameystiro ku biirista kooxda kubadda cagta ee Stuttgart weliba si joogto ah isbuuca soo socda. dhanka kale waxaa leeyahay Hector Bellerin ayaa amaanay Mikel Arteta isagoo sheegay in taageerayaasha iyo falanqeeyaasha ay fahmi karin ardayda macallimu Mikel Arteta. dhanka kale haddii afiirna waxaa leeyahay kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Lyon ayaa ku jira wadahadalo horumarsan kaas oo ay doonayaan inay soo gabagabeyaan heshiiska Hossein Aouar. Arsenal ayaa ku doonaysa xidiga inay ku qaadato 30 milyan. dhanka kale haddii afiirna waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta Arsenal ciyaartooydeeda ayaa la filayaa inay dib u soo laabtaan isku diyaarinta xilciyaareedka cusub. July 17 ayaa la heli karaa markay soo gutaan waajibaadkooda xulka. kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa ku raad joogtay daafaca dhexe ee Brighton Ben White, laakiin kooxda kubadda cagta Gunners ayaa muuqata inay xidigan ku guuleysanayso tartanka lagu jiro si laga soo xigtay Atletics. dhinaca kale maanta waxay dhashiis ku beegan tahay kabtaankii hore ee Gunners Patrick Vieira. maxaad ku xasuustaa xidigan haddii aad kusoo gaartay daawashadiisa? kooxda kubadda cagta Marseille ayaa wadahadalo kula jirta Arsenal oo ku aadan saxiixa Matteo Guendouzi. Marseille ayaa rajeynaysa inay xidigan la saxiixato horaanta isbuuca soo socda. sida laga soo xigtay CBS Sport waxaa leeyahay kooxaha ku sareeya Bundesliga Dortmund, Hertha Berlin iyo Olympiacos ayaa xiiseynaya saxiixa Reiss Nelson. sida laga soo xigtay majalada Football London, daayarka Arsenal Nicolas Muller ayaa diiradda u saaran kooxaha waaweyn Yurub. Ben Mertesacker oo ah tababaraha xidigan ayaa sheegay in xidigan ammaan ku bixi doono. waana intaas saaxiib barnaamijkeena maanta waxaa soo jeedinaya aniga Nuuraan Shakar.